sheekh xaas iyo carruur ayaa iga jira Soomaaliya waxaan u baahday xaas kale waana guursaday marka tan dambe ayaan hadda la joogaa tookaysigii xaasaska ma awoodo marka taas dambi ma iga soo gaaraya الله قرآن الكريم كأوحي يلي ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلق ضمر كائنات بقول كيف بقول عدالة الصميسان وحتى تعايلك يا قلبك العدالة الصميسان ما أودي كرتان إيه هكتجينا مد إذا كم ذا سيدي يضع معلق ولا سيدي وحلا الله ذا أكل هكتجينا يعني وحوي نباكم مجعبا نينا مله mid qaabka ah uga tagin oo mid uun iska raacina macnaheedu waxa laga wadaa dadaala xadiidka nabiguna wuxuu sallallahu alayhi wasallam ninkii laba dumar qaba oo mid iyaga kamida u eexday ama u leexday maalinta qiyaamadu iimaanaya isagoo labadiisa dhinac mid kamida dhulka yaalo oo uu jiidahay yani dhinac baa dhulka yaala dhankii kale uu jiiday yani waxay astaan u tahay cadaalad xumardu ku kacay sidaas daraadeed waa in laga dadaalo bal rabbi tabaaraka wa tacaala guurka hal dumar ka badan guurkeeda wuxuu sharti uga dhigay inaad cadaalad samayn karto fa in khiftum alla ta'dilu fawaahida wallahu tabaaraka wa ta'ala hadaad ka baqayso inaad cadaalad darra aad ku kacdo oo cadaalad aad samayn weydo hadaad ka baqayso hal mid ku gaabso laakiin hadaad cadaalad samayn karto bal mid iyo wixii laba iyo wixii ka badan lagu ogolay sidaas daraadeed ninka isagii reerkiisii ka fog oo meeshuu joogay haweenta kale ku guursaday haweentii kalena ka maqan tahay waa inuu dadaalo oo laba arrimoodba ku dadaalo waqtiga ugu badan ee uu u heli karo horta waa inuu ugu yimaado midda uu ka maqan yahay midda labaadna waxa weeyaan waa inuu cafis weydiisto oo iyada xaggeeda xaqa iyada iska leh inay saamaxdo waa inuu weydiisto oo raalinimo weydiisto wallahu a'lam